odayaal ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo maanta ku shiray magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo waxgaradka in laga hortago colaado ka dhaca qaybo ka mid ah gobolka gaar ahaan deegaanada Kabxanle iyo Deefo oo hoostaga magaalada Beledweyne. waxaan rabnaa inaan ogeysiino dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya madaxdeeda iyo dowladda Hirshabeelle madaxdeeda iyagana dhibkaas meesha laga abaabulayo oo hadda socdo taagan in asna aan ogeysiino dib intuusa dhicin laga hortago. Soomaalidu waxay ku maamaadaa balaayo dhagal la qabtay leedahay daba la qabto ma laha. marka labadaas qodob baan rabnaa in insha Allah ka hadalno oo la rabo dadkaas Deefo iyo Kabxanle deegaankaas ku nool oo 4 sano dagaal lagu la jiray. arrintaas waa ka digaynaa dagaal baa meesha ka soo socdo. arrintaas ayada ana cidda abaabulayso nagama qarsoon. waxaan idin sheegaynaa gobolkaas haddii guddi farsamo oo wax bixinaya uu ahaa iyo hadday madax tahayba hal jifo way. gobolkana dhibaataa ka jirta. annagu macnaha waxaa weeye dad nabadeed baan nahay. ilaahay meeshuuna makariibaan ilaahay ku sugnaa. waxaa intaan ugu dhamaaday warkii caalamku aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Muqdisho. anigoo Cumar Xasan Cali oo warka idin soo jeedinay dhammaan saaxiibadii warkayga la qayb galay daawadayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.